Saxaafadeed ay soo saareen Guddida Heer Qaran oo diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa waxa uu dhignaa sidan. Guddida Heer Qaran oo diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus iyagoo tixgelinaya xaaladda halista ah ee ku soo kordhay adduunka uu sababi karo xanuunka coronavirus waxa ay soo saareen go'aamadan. Xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka marka ay u baahato. Waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaanba agabka caafimaadka iyo dawooyinka. Dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad aan ka tirsanayn shaqaalaha Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo leh isaga diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada ee ugu dhow. Goobaha waxbarashada dalka. Dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dawladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuulada caadiga ah, iskuulada hoyga, xarumaha agoomaha ee wax lagu barto marka laga reebo kuwa dawladdu ay gacanta ku hayso oo si gaar ah loola soconayo xaaladooda. Waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa maalinta beri ee taariikhdu ku beegan tahay 19-ka bisha Maarso sanada 2020. Masaajidada. Waxaa lagu amrayaa dhammaanba imaamyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaada faralka ay ku soo koobaan kana aysan badin karin 25 daqiiqo. Sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaanba musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada. Muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa maanta ay taariikhdu tahay 19-ka bisha Maarso sanada 2020. Dhammaan imaamyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha masaajidada. Bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weyse qaataan guryahooda iyo meheradahooda. Qofka dareema calaamado muujinaya hargabka waa inaysan iman masaajidda ayna ku soo tukadaan guryahooda. Waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuudda salaada inoogu duceeyaan dhibaatada xanuunka.